waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. dhegaystayaal, maalinba waxbaa soo kordha, waxbaa af soomaaliga ku soo kordha. suu waa nool yahayoo wixii noolina sidoodii hore ma ahaadaane. hase ahaatee waxaa soo kordhaa mar walba wax hagaagsan ma noqdaane. wuxuu ahaan karaa xagga macnaha ama xagga naxwaha mid ka dhaawacan, dabadeedna dhallaanka iyo dhallinyarada marin habaabiya intay moodaan inuu sax yahay. waxaa haddaba dhowrkii sano ee u dambeeyey aan maqlaayey, adna malaha aad ila maqlaysa, waraah aan la yaabo xawliga ay inoogu dhex faaftay iyo sida haddiiba loo qaayibay ee ay uga midka noqotay erayada loo adeegsado wararka laga tabiyo idaacadaha iyo telefishinada af soomaaliga ku hadla. waxaan maqlaa si aan garan waayaa waxa looga dan leeyahay afarta eray ee ah dadka af soomaaliga ku hadla. waxaan maqlay adna malaha ila maqashae maalmaha iidaha qof leh waxaan halkan ka salaamayaa aabbahay hebel, hooyaday hebla, walaalahay hebel iyo hebel iyo dhammaan dadka af soomaaliga ku hadla. ummadda ma garatay afka soomaaliga ku hadasha. qabyaaladu sidaynu ognahay waa shay dilaaya oo dadka afka soomaaliga ku hadlo oo dhan kooda dhex jira. waxaan maqlaa adna malaha ila maqashaya ku kale oo intuu caana boore xayeysiiyo maalin walba hadalkiisa ku soo gebagabeeya. caanaha magacaas leh waxaad ka heli kartaan dhammaan dhulka dadka af soomaaliga ku hadlaa ay degaan. mar kale waxaan maqlay qof leh sanadkan dhalashada bisha soonqaad la iskuma daba marinoo isku habeen ayaa laga arkay dhammaan dhulka dadka af soomaaliga ku hadlaa ay ku dhaqan yihiin. mar afraadna waxaan dhagaystay iyada oo laleeyahay abaaruhu waayadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan, waxyeelana ugu geystaan degaanada dadka af soomaaliga ku hadla ee geeska afrika. intaasiba af ahaan waa weerar laga fiican yahay iyo malaha ujeeddo qoonsi mudan oo aynaan u warhayn, lana rabo siday inoogu soo noqnoqonayso inaynu u baranno. ummadaha dunida tu waliba magac bay leedahay, magac loo wada yaqaan, ururada caalamiga ahna ka diiwaan gashan. sidaa daraaddeed magaceeda ayaa loogu yeeraaye afka ay ku hadasho looguma yeero, lagumana tilmaamo. tusaale ahaan talyaaniga ama jarmalka ama jabaanka marka la sheegayo cidna ma tiraahdo dadka af talyaaniga ku hadla ama dadka af jarmalka ku hadla ama kuwa af jabaanka ku hadla. waxaa la yidhaahdaa oo keliya talyaaniga, jarmalka ama jabaanka. maxaa haddaba keenay, maxaase loogu baahday? ileen soomaalida soomaali baa la yidhaahdaaye in magaceedii tilmaan loogu bedelo oo intii la odhan lahaa dadka soomaalida ah la yidhaahdo dadka af soomaaliga ku hadla. shaki igama jiro qofka sidaas lihi inuu soomaalida uun u jeedo. hase ahaatee waxaa jira dad aan soomaali ahayn asii afkeeda ku hadlee talow iyagu ma ku jiraan kuwa laga hadlaayo? ilama aha. sidaas awgeedna waxay ahayd in la yidhaahdo laguna ekaado caanabooraha noocaasa waxaa laga helaa degaanada soomaalida oo dhan, iyo in la yidhaahdo abaaruhu waayadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan, waxyeelana ugu geystaan dhulka soomaalida. dhinaca kale marka la leeyahay dadka af soomaaliga ku hadla, sow lama moodo in afka oo qurihi uu soomaalida ka dhaxeeye aan xidid isugu oolin, wax kalena aanay wadaagin. sidaas waa la moodi karaa, ha yeeshee run ma aha. maxaa yeelay sidaynu ognahay duniduna ay wada qirsan tahay, soomaalidu waa ummadda keliya ee afrikada madow ku abtirsata oo wadaagta af, dhaqan, diin, madhab, taariikh iyo dhul u go'anoo qoqobyo juqraafiyeed aan lagu ogeyn. ma laga yaabaa kolka inay jiraan arrintaasi dad ay dhibayso oo jeclaan lahaa in soomaalidu aanay ummad ahayne ay ummada noqoto,
sidaa darteedna ay afka oo qura wadaagto isaga loogu abtiriyo in kaloo idilna ay ku kala tagan tahay. ma hubo in loo maleeyaase way bannaan tahay. waa tahay hilaadda mar eegga laga joogo 3 sano ayaan dhegaystay weriye hebel oo waraysanaya nin harqaanla ah oo xamar deggan dhawaanna ka soo noqday dalalka khaliijka midkoodoo uu dabin ku noolaa. mucdii waraysiga intii aanu u dhaadhicin ayuu ka hormariyey hordhac ku saabsan sida soomaalida qaarkeed ay aqoon uga soo kororsatay dibadihii ay u dooleen dhowr iyo 30 sano ee u dambeeyey. markaas buu yidhi waxaa soo baxday dhallinyaro Soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan, gaar ahaan habka tolliinka khaliijka, kuwaasoo hadda tola dhar farsamadiisu aanay waxba dhaamin kan khaliijka. siday ila tahay gafka weedhaas ku jiraa carruur mooye cid kaloo walbaba waa u cadyahay. wuxuu weliyuhu doonayay inuu ammaano qaar ka mid ah harqaanlayaasha Soomaaliyeed ee ka soo laabtay dibadaha, gaar ahaan khaliijka. hase ahaatee isaga oo aan u dan lahayn ayuu meel uga dhacay. wuxuu ku tilmaamay sodcaaladoodii dibadaha kuwa aan waxba ka soo kororsan oo damiin miiran ah. marba dharka ay tolaani haddii aanu waxba dhaamin midka laga keeno isla dalalkii ay ka soo laabteen waxna ka soo barteen. sideedana waxaas iyo waxaas isma dhaamaan marka la leeyahay waxaa loo jeedaa labadu waa isku mid, mana fiicna. waa isma dhaanta iyo dhasheedna Soomaalidu waa tidhaahdaa. waxaa kaloo la yidhaahdaa hebel iyo hebel isma dhaamaanoo maanta oo kale labada midkoodna hiil iyo hoo loogu irkan maayo. sidaa daraaddeed afka weliyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa waxaa soo baxday dhallinyaro Soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan, kuwaasoo tola dhar farsamadiisu aanay ka liidan amaba ay u dhiganto farsamada lagu yaqaan midka ka yimaada dalalkii khaliijka ee ay joogi jireen. anagu ummad afka Soomaaliga ah ma jirto ummad af Soomaali ku hadasha. anagu ummad afka Djibouti ma laha. Soomaali weey Djibouti. Ethiopia ma laha. waa Soomaali. NFD ma laha. Soomaali weey. anta sukay kamado ma jiraan uu ku sheegay dadku waa Soomaali. kelmadan ah ummadda afka Soomaaliga ku hadasha baanu anagu dhagahooda maxaa dhagahooda aanu war sugniyo anagu waa isbarreydada kan afka luqadooda ku heesnaa. anagu ummadayada tan baan u heesnaa kaliya, dadka kalena iyaga ku khasban taageero. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo.